السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا أصحابتا أن جعلهاي وولالكين إمقال أو إذن له كسو دوادا فيديو عصب الشانل كدا عصب تاي سبسكرايب ده كمبايل كنا فرو لايك يشارنا كما مرنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا أصحابتا أن جعلهاي وولالكين إمقال أو إذن له كسو دوادا فيديو عصب maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sidii aad u heli karto hordhac YouTube ama intro adiga ku qaas ah ama magacaaga uu soo bixi karo. Waxaan rabaa wixii aan ka fahansanahay inaan idin sheego. Ugu horeyn asxaabta aan jeclahay waxaa soo kicinaysaa in browser aad isticmaasho. Aniga waxaan isticmaalaa Google Chrome. Google ayaan soo degsanayaa. Halkan waxaan ku qorayaa si aad u jeedaan Fixpress, yacni website-kan ayaa laga heli karaa. Fixpress ayaan qorayaa kadib search ayaan dhahayaa. ugu horeyn linkiga ugu horeeya aad ka dooranaysaa. linkiga ugu horeeya markaad ka doorato yacni website-ka bilowgiisa sidan ayuu kusoo dhacayaa. waxaa laga yaabaa adiga inuu kusoo weydiiyo gmail-kaaga iyo waxaaga inuu kusoo weydiiyo kadib email-kaaga aad geliso wax dhan aad geliso password-ka YouTube kugu samaysan wax dhan inaad geliso ayaa fiican. sidaas ayuu kusoo qabanaa. aniga laakiin mar hore ayaan iska diiwaangeliyey login bas ayuu leeyahay sign up ima dhahayo. meeshan yacni waxaa kaaga muuqdo wuxuu jeedaa in meeshan ay ku xiran tahay 8,680,097 qofood halka 20,000 ay daawatay lacagaha laga sameeyay oo jeedaa qaybta ugu dambeysa waaye. waxaan jeclahay marka inaan waxaan dhahaa get start for free inaan dhahay ayaan jeclahay. markii aan dhaho adiga wuxuu kusoo qabanayaa sidaan sign up ayuu kusoo qabanayaa. sign up kaas waxaa la rabaa inaad ka gudubto. inta waxaad gelinaysaa magaca gmail-kaaga aniga way diyaarsan yahay. tusaale kale ama hadda geli ayaa kaas ay diyaarsan yahay. intan magaca hasta magaca macnaha labada magac waa kala goynaysaa email-kaaga adiga waa dareemi kartaa. inta magaca u dambeeya isla xasankii ku celinaysaa xumahan email address-kaaga ayaad gelinaysaa oo gmail.com wuxuu yahay ayaa gelinaysaa. intana password-ka ayaad gelinaysaa. markii aad geliso waxaad leedahay marka go ayaad leedahay. markii aad geliso waxaad leedahay sign with your Google account ayaad leedahay. marka wuu ku raadinayaa kadib gmail-kii aad soo samayso wuu kusoo tusaa. intaasoo gmail telefoonada ku samaysan laakiin midka aad ku samayso ayaad ka dooranaysaa. markii aad ka doorato welcome to Eltira ayo ilaahay wajida yacni soo dhawow waan iska diiwaangeliyay yacni website-ka. marka ugu horeyn waxa inta kaaga muuqdo waxay tahay intro aad u qurux badan. inta waa kana ugu yaraan 5tan ugu horeysa ama 6da ugu horeysa waa free. adiga 7da ugu horeysa ama 8da ugu horeysa ama waa free. marka waxaa la rabaa iska ilaali midka korkiisa ay free ku qoran tahay oo kaliya ayaa free ah. midkan oo kale blend ay ku qoran tahay waa blend okaadi weli free ayaa socda. okaadi yani in badan oo lacag waa kana marka blend expand meesha ku qoran tahay waa lacag yar oo iska yar oo $1 ama $2 camal ay ku weydiinayaan. yacni aniga hadda ma rabno kuwa ka qurux badan ayaa jira oo lacag la'aan ah aysan fahansaneen. marka dadka kana kale waa lacag la'aan kana kale waa lacag la'aan. marka aniga hadda waxaan tusaale ahaan soo qaadanaynaa kuwan sawir ayay ka rabaan. sawirada ayaa ka rabaan sawirkaaga ayaad saaranaysaa kadibna magacaas ayaad ka bedelaysaa meesha ku qoran. tusaale kale aniga kan ayaan tusaale soo qaadanaynaa. sidan markuu kugu soo baxo baa ayaad leedahay sidaas ayaa dhahay. halkan marka waxaan soo dhacay ayaan qoraalka ka bedelaynaa. hadda wax ku qoran Fixpress ayaa ku qoran. waxaan leh customize now ayaan leenahay. marka
يعني inaan hagaajisana rabnaa oo magacaasaan ka bedelno. sawir ayaan u baahanahay yani anaga tusaale ahaan midkan telefoonka iska soo qaad daan leh yani adiga dhow sawirkaaga ayaad saaranaysaa browser yani asigaa shaqada noo wado. sidaan markuu soo qoro yani halkan waxaad ku qoraysaa hal magac oo kaliya isaga dhan magaca channelkaaga kale ku qor Eltere Production. markaad taas ugu qorto meeshaan markaad ugu qorto magaca inta kalarka aad ka bedelan kartaa magaca kalarka urubta aad ka bedelan kartaa kadib sidaas ayaad leedahay. inta aad audioga waxaa cod ayaad ku darsan kartaa halkaan aad cod ugu darsanaysaa waxaana dhan waa cod juuskan waa cod waxaasoo dhan waa cod yani iga remove karay mar raba hadda. sidaan markuu ku soo qabto waxaad leedahay grid preview aad leedahay grid preview ayaad leedahay. sidaan ayaa ku soo baxaysa yani sidaan markii ku soo baxdo view my previews ayaad leedahay haddana mar kale يعني هادو هنجعله إنه هوشان oo dhameystiray halkan ayuu ka soo muuqanayaa halkan ayaan ka sugaynaa marka halkan wareeganaysa ayaan ka sugaynaa aan sugno هنجعله inuu soo qaban doono markaas kuwan kale ana hore u sameeyay laakiin midka hadda aan sameynay aan ku dhufano midkaan hore u sameynay aan ku dhufano يعني حاجة قد كايا علس كار على نقطة يعني وجه داعي للترا برودكشن هجاك باقي كلام مركا سان مركا تاي مركا aad rabto inaad soo degsatid dawlad ayaad ku qoranaysaa meeshan وجه دا سيلة تاي دولة and share meesha ku qoran tahay dawlad and share kaas ayaad taabanaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa dawlad halkaas waxaa inoo soo fuulaya degitaan asiga yani xagaa cabaar kadib adiga waa dareemi kartaa markay wax ku degayaan gaririga ayaad ka dhex arki kartaa waa uu noo degayaa hadeer cagaaraan sugna waa noo degayaa halkan ka soo bax marka waa uu noo degay galeriga taas aan aadna marka يعني galeriga ayaan aadnay hadeer ujeedin يعني asxaabta inuu noo samaysmay kadib marka asxaabta waxaan jeclahay midka qurux badan inaad samaysan karto ayaan aaminsanahay aniga midkan tusaale ayaan soo qaatay mid kale oo kasii qurux badan macala sawir adiga samaysan karo marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen wax walba ku saabsanaa sidii intro qurux badan aad u heli karto hal haddii aad la yaabi jirtay dad intro qurux badan wato maanta kadib arrintaas waad ka bixi kartaa waan isku dayi kartaa haddii aad si meeshaas aad sii marmarto waxyaabo ka qurux badan oo free ah waad ka sii heli kartaa marka asxaabta waxaan jeclahay casharkeena halkaas inaan kusoo gabagabeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waxaan idin leeyahay muslimiinta meel kastoo ay joogtiin ramadaan kariim.